faa'iidooyinka gabdhaha madow. kow gabadha madow kalsoonidu waa boqolkiiba boqol waana sababta ay isku cadeyn weyday. labo gabadha madow waa ay ka karti badan tahay gabadha cad xagga shaqada iyo xagga hawsha guriga. saddex gabadha madow way ka naxariis badan tahay kuwa cadcad. afar gabadha madow haddii aad xiriir wadaagtaan cidna kugu cayrsan mayso waa kuu keligaa. shan gabdhaha madow lama elaysto sida kuwa cadcad meelaha kuma dhacdhacaan jinkaaba iyaga ka baqa. lix gabadha madow nimanku way ammaanaan maahane ma shukaansadaan. toddobo gabadha madow suuq ma lahan oo cidna kugu ciriirin mayso. siddeed gabdhaha madow waa ay ka indha qurxoon yihiin 99.9 boqolkiiba kuwa cadcad. gabadha cad doqon kasta waa uu jecel yahay laakiin gabadha madow waxaa jecel oo keliya nin karmeedka. 10 gabadha madow hadday waddada marayso cidna foodayn mayso waa burji ay kuwa kala dheer tahay. 11 gabdhaha madow waa ay ka magac qurxoon yihiin kuwa kale sida xidigo, siraad, sacdiyo, dahabo, doombuuro iyo wixii la mid ah. 12 gabdhaha madow waxa ay u badan yihiin inay guursadaan ragga taajiriinta ah. 13 gabar madow haddii aad guursatid shoobin iyo isqurxin lacag kaaga bixi mayso. ugu dambayn gabar madow iyo malabba waa la dhuuqaa. fiiro gaar ah marka gabdhihii cadcaddaa yaa u maqan cidna uma maqna ceelna uma qodna. laa'igda muuqaalka si muuqaaladeenu ay mar walba kuu soo gaaraan soo kala sheer dheh ama koobi linkiga noo taabo. mahadsanid. imise biyo ah ayuu u baahan yahay jirkaagu maalintii? jirkeenna boqolkiiba 60 ilaa 70 ayaa biyo ah. waxa u baahan dhammaan unugyada jirkeenna waxa ay ka caawinaysaa in neefta oksijiinka iyo curiyaasha nafaqo ee cuntada laga helaayay ay jirka wada gaaraan. waxa ay xoojiyaan awoodda uu jirku isaga saaro sunta inta badan ka dhalata neefsiga cuntada. sidoo kale waxa ay nidaamiyaan heerkulka jirkeenna. jirkeenna waxa uu maalin kasta qashin ahaan isaga saaraa qiyaas ahaan 1 litir iyo bar oo dhidid ah. sidoo kale waxa uu 1 litir isaga saaraa kaadi ahaan. sidaas awgeed biyaha aynu cabnaahi waxa ay buuxiyaan kaalinta biyaha jirka ka baxay. waxaa xusid mudan in xaddiga qashin saarka aynu soo xusnay ay ku xiran tahay hadba nuuca shaqo ee maalinta uu qofku qabanayo iyo cimilada. biyo intee le'eg ayaa maalintii u baahan tahay? maadaama uu jirku baahidaas u qabo biyaha waxaa laga yaabaa in qofku isweydiiyo xaddiga biyo ee uu u baahan yahay inuu maalin kasta cabo taas oo ku xiran hadba miisaanka jirkiisa. xeelad xisaabeed oo aan kuu sheegi doono ayaa ah habka ugu fudud ee uu qofku ku garan karo xaddiga biyaha uu u baahan yahay maalintii. miisaankaaga oo laga jaray 20 kadibna lagu dhiftay 15 loona geeyay 1500. tusaale ahaan haddii miisaankaagu uu yahay 80 kiilo waxa aad ogaanaysaa 80 kiilo oo laga jaray 20 oo 60 ah 60 lagu dhiftay 15 oo 900 ah 900 oo lagu daray 1500 oo 2400 ah. sida aynu la soconno 1 litir waa 1000. sidaas awgeed 2400 waa 2 litir iyo ku dhawaad bar. talooyin muhiim ah caado ka dhigo inaad biyaha cabto xitaa haddii aadan haraad qabin ama aadan oon qabin. biyaha si tartiib oo kabasho ah u cab iskana jir inaad biyo badan mar kaliya qurquriso. koob biyo ah aroorta hore marka aad soo kacdo ama hurdada aad ka soo kacdo cab. biyaha aad cabaysaa ayaanay ka qaboobaan heerkulka dabiiciga ah taasoo u dhiganta qiyaas ahaan 25 digrii. biyaha qabowga lagu cabaahay waxa ay keenaan madax xanuun iyo dheefshiidka oo ciladooba. cun qudaarta biyaha leh sida qajaarka, xabxabka ama qaraha, shamaamka iyo wixii la mid ah. waxa ay taasi kaalin ka qaadan kartaa in jirkaagu uu biyo fiican helo. like muuqaalka sidoo kale share ama copy linkiga noo taabo. mahadsanid.